السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أي برنامج شدين يعني كجهد لجنار مع عافماتك كسر هذا وحن رجينا إن عد برنامج كني ونقول دونا ومد فائدة له وحن كجهد لدونا برنامج كان وحيالها لو يقانو مقلدة عن أهين دبيعية سددتك شيئا عيين مقليان وعد عن ذلك كلام مقلين أما حنشاشق نقطه أما موسيقيو وحيالو قرع ميها نقطه ama wax jajabayaba ha noqoto amaba ha noqoto sidii roob iyo biyo dhacaya oo kale ama codka dabaysha oo kaleba ha noqoto codadkaasi iyo qaar la mid ah xanuunkaasi waxaa luqadda qalaad loo yaqaanaa tinnitus ayaa la yidhaahdaa tinnituskaasi waxa uu sababaa ama wuxuu sababaa qofka uu ku sababaa daily lifekiisi iyo noloshii uu ku noolaan lahaa inuu dadka qaar khalkhal ku rido khalkhalka uu qofka ku riday wuxuu keenaa in uu qofku markaa shiki uu ku dhaco shikigaasina horta inuu warwar keeno warwarkaasina uu shiki dhaliyo shikigaasina haddii uu qofkani dhakhtar raadsan waayo inuu u maleeyaba in jin iyo shaydaan iyo waxyaala caynkaas ay qofka la hadlayaan ama waxaan maqlayaan wax normal ahayn dabadeedna uu arko inuu sheekadan sheeko jinba tahay inay ahayn sheeko caafimaad runtii de normal maaha oo waa ka duwan yihiin dadkii kale laakiin waxaan u jeedaa waxa weeye inuu qofkan u arko inay sheeko shaydaan tahay inay ahayn sheeko caafimaad iyo in qofkan laga daweyn karo ama laga yareyn karo codkan su'aalaha kale aynu ka jawaabi doono waxaa ka mid ah maxaa keena waxa aynu kaloo ka jawaabi doonaa sidee loo daweeyaa ama loo yareeyaa codka waxa daawadayaal aad ku mahadsantihiin daawashadiina aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada waxa aynu hadda eegaynaa waxyaalaha keena xanuunkan guuxa iyo reenka dhegta aan caadiga ahayn oo loo yaqaano tinnitus la yiraahdo okay tinnitus horta waxa ugu caansan ama ku dhaca dadka waaweyn inta badan 60 iyo wixii ka sareeya waxaana la yiraahdaa kuwa waxa keena wax la yiraahdo da'da ayaa keenta oo wax loo yaqaano aging processka ayuu ka mid yahay ama hearing losska waxyaalaha aynu u naqaano qofkaasi uu dhege beel oo kale inay ku soo socoto way ku dhici kartaa dadka dhalinyarta oo qofkii dhege beelku ama xanuun ha keenaya ama wax la mid ah ku soo socdo waa laga yaabaa iyada lafteeda inuu maqlo laakiin ma aha ta ugu badan inta badan keenta waxaa kaloo ka mid ah xanuun Meniere's disease la yiraahdo waxaa ka mid ah xanuunada iyaduna keeni kara diabetiska ama macaanka thyroid disorderka wax loo yaqaano oo disorderskan uu keeno qanjirkan inta badan thyroidka loo yaqaano iyo multiple sclerosis xanuun la yiraahdo ayaa iyaguna keeni kara anxiety-ga iyo depression-kuna way keenaan warwarka iyo qofku inuu walaaca nolosha uu ka qaado ama wax la mid ah iyaduna way keeni kartaa waxyaalaha keena kale iyadna waxaa ka mid ah qofka dawooyinka qaar hadduu ay u socdaan dawooyin qaato kuwaasina way keeni karaan waxaa ka mid ah dawooyinkaasi qaar loo yaqaano non-steroidal anti-inflammatory iyo aspirin waxaa kale oo ka mid ah kuwa loo qaato kansarka iyo wax la mid ah oo loo yaqaano chemotherapy waxyaalahaas oo dhan iyo waxyaala yaryar oo naqnaqan oo aynu ka nimi iyaguna way keeni karaan okay haddaba qofkan dhibanaha ee xanuunkani uu ku dhaco waxa weeyaan horta talada koowaad ee la siinayo dhakhaatiirtu siinayaan waxa weeyaan inuu qofkaasi uu marka koowaad sida ugu dhaqsaha badan uu dhakhtar ugu tago uu talana ka soo qaato waayo waxaba laga yaabaa in xanuunkan hayaan uu xanuun yar oo fudud yahay hatta xanuunada aan soo sheegnay waaweyn ba qaar ka mid ah inaan haynin laakiin qofka ay dhegtiisa ku ururtayba waxaynu u naqaano dhukayga uu ku ururay dhukagaasina uu sababayaba dhibtan imkaan ka sheekeynayno dabadeedna waxa laga yaabaa in la helo dhukayga laftiisa inuu ururo maxaa keenay oo infectionka iyo wax la mid ah waxa yarna laga daweeyo qofkaasina uu sidaaba xanuunkii iyo dhibtii kaga reysto marka talooyinka lagu siinayo ee dhakhaatiirtu ay ku siiyaan marka ay eegaan kadibna waxaan kugula talin lahaa inaanad dhayalsanin ee aad hore aad ka qaadato waana rajeynayaa inaad dhayalsanayno de waa shay caafimaadkaaga ku tacalluqa allahuma salli calaa maxamed waxaynu u baahannahay in iyadana aan kugu hoga tusaaleeyo waxyaalaha kaa caawin kara qofku marka uu cod kaa maqlo inuu
isku dayo inuu argagax iyo sidii wax shaydaan ula hadlayo oo kale aanu u qaadanin ama uu maqlayo cod shaydaan, laakiin horta istajiyo uu stresska iyo werwerkana uu iska yareeyo, uu dhakhtarkana u tago. Dhakhtarka marka uu tago waxaa laga yaabaa in talooyin la siiyo. Talooyinkaasi waxay ka mid yihiin processka caawinaya caafimaadkiisa. Waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo CBT loo yaqaano ama Cognitive Behavioral Therapy wax loo yaqaano, iyo tinnitus counseling wax la yidhaahdo qofkii in lala taliyaa, iyo in sida masalan qofkii in loo isticmaalo wax la yidhaahdo sound therapy to retain your brain to turn out and be less aware of tinnitus. Okay, systemkani waa system runtii aad iyo aad effective oo ahaa muddooyinkii u dambeeyey. Inta badanna waxaa loo isticmaalaa marka qofka loo taag waayo siyaabihii kale ee lagu daweynayay. Maxay tahay systemkani? Systemka waxa weeyaan mashiin yar baa dhegtaada lagu xidhayaa. Mashiinka yar ee dhegtaada lagu xidhay waa mashiin la shaqeynaya codkan adiga disturbka kugu sameeyey halka uu ka imanayo. Dabadeedna marka la ogaado codkaasi dib u shaqaysiinayaa maskaxdii codkan maqlaysay in ay ignore garayso ama ay joojiso codkii hore oo ay codkan dambe la qabsato. Dabadeedna marka dambeeya hoos baa loo dhigayaa si loo gaadhsiiyo level aan adiga wax dhibaataa kuu keenayn, shaqadaadana aan saameynaynin. Marka runtii waa very effective, aad bayna u isticmaalaan dhakhaatiirta dhagaha iyo sanka iyo afku. waana dawo runtii aad iyo aad u strong ah marka la eego in ilaa hadda wax dawooyinka loo hayo kuwa loo maara waayo. Waayo xanuunada qaar dee waxaa jira level bay leeyihiin. Levelada markaa levelka koowaad waxaa laga yaabaa in si yar oo fudud loo daweeyo hadduu muddo dheer qofka soo hayay iyo haddii dhibaatada timid noocay keenay iyo waxyaalo la mid ah. Dabadeedna insha allahu dee ilaahay baa caafimaadka haya, isagaana dee kuu qadaray inay kugu dhacdo hawshani. Marka muhiimadda ugu weyn waa inaad ilaahay barido, laakiin aad asbaabtiina aad qaadato oo aanad ka tegin. Dawooyin badan looma qoro qofka inta badan haddii aynu infection oo kale aanu jirin, haddii dhegta dhexdeeda ayna wax dhibaatay ka jirin, ama qaybta dhexe ee dhegta sida durbaanka iyo lafaha yaryar ka dambeeya oo kale iyagana ay dhibaato ka jirin, ama sida xanuunka aan hore kusoo sheegnay oo kale qaar ka midi ayna qofka haynin, kuwaasi oo ama dareen wadayaasha dhaawaca ama xididada dhiigga dhaawaca oo keeni kara markaa xidid dhiig oo isaga laftiisu dhibaato wadaaba in uu jiro oo dhibaatadan keenaya. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. insha allahu su-aalihiina iyo wixii talooyin ah ee aad isleedihiin dadka waad ku caawinaysaan haddii hore kugu dhacday halka noogu reeba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.